madaxweyne ku-xigeenka Puntland Engineer Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey ayaa magaalada Garowe caasimadda Puntland waxa uu kaga qayb galay daafurka macad cilmi baaris oo laga hirgeliyay deegaanada Puntland. Maxamed Saciid ayaa warkaasi magaalada Garowe caasimadda Puntland inooga soo diray. munaasabada lagu dahfurayay macadka cusub ee cilmi baarista ee Sidra oo ka shaqeyn doona arrimaha cilmi baarista isla markaana uu asaasay wasiirka hore ee deegaanka Puntland Guleed Saalax Barre waxa ka qayb galay munaasabada furitaanka oo lagu qabtay jaamacadda BSU madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey xubno ka tirsan golaha wasiirada baarlamaanka aqoon-yahano iyo waxgarad sidoo kalena waxa madasha fadhiyay hay'ado ka shaqeeya cilmi baarista badda oo ay ka hadleen aqoon-yahano iyo siyaasiyiin dhammaan waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan macadkan cusub ee wasiirku asaasay isla markaana ay la shaqeyn doonaan Guleed Saalax Barre wasiirkii hore ee deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska Puntland oo macadkan asaasay ayaa ka warramay waxyaabaha macadku qaban doono. macadku wuxuu xoog saari doonaa 5 meelood haddii Ilaahay yiraahdo. dhinaca koowaad dimuqraadiyinta iyo xukunka runtii muhiim u ah wadankeena dhowr 20 sano dawlad la'aan iyo ama dawlad xoog leh inaysan ka jirin dhibaatada ugu badan ay tahay xukunkiyo si fiican u saldhigan la in baaritaano badan lagu sameeyo lambar 2 nabadda iyo cadaaladda oo iyaduna aasaas u ah ummad walba jiritaankeeda lambar 3 arrimaha deegaanka iyo maareynta khayraadka dabiiciga ah oo aan ogsoonahay wadankeenu inuu hodan ku yahay lambar 4 horumarinta ganacsiga haddii Ilaahay aynu wada ogsoonahay in Soomaaliya intooda badan ay ganacsi ay Ilaahay u abuuray inay ganacsi u samaysan yihiin laakiin xaqaa'iqda hadda aynu soo sheegayna qaybo ka mid ay tilmaamayeen in intooda badan ganacsigaas uu ku burburo intuusan gaarin marxaladda qaangaarka qodobka shanaad oo ah qodobka u dhameeyo oo ah tayeynta iyo tababarada macadku wuxuu la shaqeyn doonaa dawladda laamaheeda kala duwan ganacsatada ururada bulshada ah iyo hay'adaha caalamiga ah macadku wuxuu ka shaqeyn doonaa Soomaaliya oo idin haddii Ilaahay yiraahdo saldhigiisuna wuxuu noqon doonaa Puntland haddii Ilaahay idmo intaas waa macadka iyo brief aan idinka siinayay waxyaalaha loo asaasay iyo waxyaalaha uu qaban doono aad iyo aad waxaan ugu rajo weynaa inuu wax badan kusoo kordhin doono dhinaca cilmi baarista iyo horumarinta wadankeena. intii munaasabadu socotay waxa madasha ka hadlay xildhibaano wasiiro iyo aqoon-yahano dhamaantoodna waxa ay ka warameen waxyaabaha macadkan soo kordhin doono iyo inay soo dhaweynayaan ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey oo munaasabada soo afmeeray ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo macadkan cusub oo asaasay Guleed Saalax Barre isla markaana wuxuu sheegay in loo baahan yahay inay iskaashadaan hay'adaha ka shaqeeya cilmi baarista. dhinaca kale Camey waxa uu tilmaamay in hal abuurka Guleed uu fiican yahay isla markaana uu muujinayo sida ay muhiim u tahay in qofku marka uu xilka laga qaado uusan mucaarad noqon ee uu dalka u shaqeeyo. way wanaagsan tahay runtii cilmi baaris dalama horumaro run ahaantii haddii aan cilmi baaris la samaynin waxa uu ku xun yahay waxa uu ku wanaagsan yahay waxa uu ku xun yahay sidii loo hagaajin lahaa sababta keentay inaynu ku xumaano waxa wanaagsanna in la sii kordhiyo oo barta ay taagan tahay laga sii kordhiyo waa ay fiican tahay laakiin waxaan ku talin lahaa armay ku wanaagsan tahay tirada iyo tayada wanaagsan hadda waxaan arkaa kulley BDRC way fadhiday maalintii horena waan garanayaa hay'adda cilmi baarista hayaan ban haddana ma qaldanayn hayaan bay ahayd moojaca maanta inay cid inagala fadhido waxaan ku faraxsanahay BDRC oo ugu horeysay inay joogto intii wax la kala jiidan lahaa aad moodo inay runtii iskaashi bilow wanaagsan inaad moodo inuu meeshii ka jiro iskaashigaasi ha jiro si shaqadii ay isu xilqaameen ummaduna ay ku ogaatay inay dadka u qabanayaan iyo dalka si ay iyagana ugu hagaagto in iskaashi yimaado hay'adahan cilmi baarista jiray ama jiri doona inay intay iskaashi sameeyaan
hay-ad waliba dhinaca ay ku wanaagsan tahay hay-ad waliba dhinaca ay ta kale wax ka tari karto ay runtii ka tarto waa loo baahan yahay aad iyo aadna waa aan u soo dhaweynaya waxaad moodaa haddaan kaftan ku daro markaan akhriyayay halkan waxaan dareemayay sidii shukri sheegaysay intaad bur ku jirtaa bur kale la daydaydaado waxaan arkay istiraatiijiyadii ay lahayd sidra 2014 2015 intaba de wasiir ku ahaa guuleed marka in burkaasi jiro iyadu waa fiicnan tahay run ahaantii iyada lafteedu burkiina wuuba jiraa waxaan sheegayaa bur wanaagsan weeye intii uu qofku runtii xanaaqi lahaa ama uu mucaaradad isku day lahaa run ahaantii way fiican tahay wixii uu qaban karo dalka inuu qabto macadkan cusub ee sidra oo la sheegay inuu ka shaqayn doono cilmi baarista iyo sidoo kale arrimaha dimuqraadiyadda ma ahan macadkii ugu horeeyay ee cilmi baariseed ee Puntland laga furo waxaana horey u jiray hay'ado cilmi baaris oo ay ka mid tahay hay'adda cilmi baarista Puntland ee PDRC. Maxamed Saciid, SBC.